الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسو دوادا برنامج كيني قصوين كادمها قيبتي سي لبيو طبناد oo sidii caadada ba ahayd martiigu yahay ama uu ila daadinayo walaalkay Maxamed Cabdi Rabbi Ugaaska daawadayaal qaybtii afraad ee sheekooyinkeena qisooyinka aadamaha ayaan idinka haynaa wax ka soo cusboonaaday maadaama oo sheekadii qaybtii afraad dadkii la socdayba aynan dhamaystirmin oo ay taagneyd meel qabya ah sheekadana dadkii ay dhaxmartay iyo dadkii ay ku saabsanayd ay noolaayeen gabadhii aynu ka sheekeynaynay mustaqbalkeeduna uu taagnaa meel aad iyo aad u qabya ah wiilkii ay jeclaydna intii ay kala maqnaayeen uu ka guursaday wiilkii nolosheeda dib u dhigay ee dhibkii oo dhan ee daraadii ay u martayna uu ka danaystay oo uu furay qayb cusub ayaan idinka haynaa oo gabadhii nagala soo daristay sheekadeennii u dambeysay qaybtii 11aad qaybtii 10aad farqadeedii labaad ku dhamaatay way daawatay gabadhii ay ku saabsanayd sheekadu waxayna kaga soo falcelisay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin bahda qisooyinka aadamaha annaguna waanu ka qaadnay waxay tidhi ma jecli inay magacayga iyo magaca wiilkayga sheekada lagu xuso laakiin aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin ina soo duceeya waanu u ducaynaynaa ilaahay iyada iyo wiilkeedaba kuwii nolol qiimo badan ku noolaada mustaqbalka inta adduunka uga dhiman allah ka dhigo aamiin ayaanu leenahay waxay noo sheegtay gabadhaasi sidoo kale inay wiilkeedii uu hadda soo fiicnaanayo balwadiina uu yareeyey uuna soo hoydo oo uu xaafadda yimaado habeenkii ilaahay ha ugu wado oo ha ka dhigo mid baari ah mushkilada iyo dhibkaas tan iyo yaraanteedii ay nasiibka u yeelatayna ilaahay ha ugu bedelo wax ka khayr badan maantana waxaynu gelaynaa qaybtii 12aad oo uu inoo hayo walaalkeen Maxamed Cabdi Rabbi Ugaaska ku soo dhawow ayaan ku leeyahay mudane aad ma sanaa fakaro Maxamed sida ka dhawaajisay gabadhii qisada ku dhacday laba gabdhi ahaayeen labadii waxaan u maleesaa inay isku mid meel ka yihiin labadoodu ilaa hadda may guursanin laakiin waxaa soo diristay gabadhii horeysay oo qaybta afraad ee qisooyinka aadamaha inay hadda dhamaaday inay guursato oo haddana loo fadhiyo inay yani guurkeeda reer dhisato insha Allah reer khayr qabo ilaahay uga baryaynaa inay dhisato marka dadka ma daawash waxa uu sheegaynaa qisooyinkan meelaha ka keenayno ama dadkii ku dhacday inaan xogtooda hayno oo midlii la socono aad iyo aad qisada aan gudagalna marka qisada 12aad waxay ku dhacday marka gabar iyo wiil isjecel oo markaas falcelin dhaxdooda iimaanayso hooyooyinkooda labadooda sulta labadan way isjeclaayeen marka qisada waxay ka dhacday dalka Kenya aad iyo aad gaar ahaan dhinaca qaxootiga ka dhacday aad iyo aad waxaa dhacday marka gabadhii wiilku way isjeclaadeen sax meel bay isku barteen kadib dhaxdooda waxaa dhaxmaray jacayl aad iyo aad jacaylkii marka uu sii dheeraaday wiilkii ma shaqeeyo gabadhiina waa guri joogto guri hooyadeed iskaga nooshahay sax marka wiilka cidooda marka asiga waxaa shaqeeyo markaas muusiga abahood ilaa uu haristo uu dhintay wiilka weyn asi jiro u shaqeeyo marka oo cid biil gacan ku hayo asina markaas wili muu guursanin xaasna ma lahan laakiin murugtu waxaa saaran cid inuu yani garab qabto oo garab taagnaado taas ugu murug badan inuu yani guur iyo xaas yeeshto wiilka waxaa culays saaran maadaama aabahood dhintay inuu booskii aaba uu buuxiyo ubadkii iyo hooyadii iyo reerkii gacanta ku hayo marka wiilka marka waxaa gala damac guur aad iyo aad gabadhii u jeclaadeen marka waxaa maalin habeenaha kamid waxaa aragtay gabadhii hooyadeed baa aragtay labadooda wada taagan waqtigoodana way la socotay marka wax dhexmarayo aad iyo aad maalinta way u wacday waxay dhahday marka way fiican tahay inaad guri yeelataan oo mustaqbal yeelataan intaa wadooyinka dadka lagu sheekaysan lahayn aad iyo aad maamadu marka way go'aamisay maamadu waa gabadha hooyadeed marka wiilkii gabadhiba intay wada yadhay ku tiri inaad guri yeelataan baa ka fiican inaad wadooyinka isistagtaan marka wiilku wuxuu dhahay hayuu dhaw ogolaaday sax asuu markaas baxay oo hooyadiisa ciddiisa ula tagay marka inuu gabadha guursado sax maamo hooyadiisa marka waxay dhahday marka horta midku koobaad walaalka ka weyn oo guursanin wuxuu ku mashquulsan yahay gacanteen oo aniga ugu hayo adigii haddaad dhamaad inaad guursato soo ma fiicno inaad meel isku saarto koo shaqaysato yani biilka walaalka u keenan ma wax ku cunaysaa iyo ka wada maamada markaas wiilka marka waxayuu dhawaan shaqaysanay laakiin gabadh horta la guuriyo maamadu waxay dhahday marka inaad guursato horta waxa ka horeyso inaad adiga shaqaysato sax
oo ogaano inaad meel ku saari karto wiilkii marka maamada meesha ku cadaadisay marka wiilkii marka uu adkeysay waa marka maamadii hadalkeeda iyo gabadhii jecelkeedii maamada saddexdiisa waxay dhahday oo markaas gabadh guursanin ku dhiirigelisay marka maamadu wuxuu ku dhahay disaas tahay gabadha aniga meesha raan aadaa maamadu ku dhahay marka maamadu waxay dhahday saas tahay bal wiilka walaalkaaga ma arintan kala tashani wiilkii dhahday marka wal ninkii ahay hebel saan uu dhahay bal saan uu rabay sidaan sameeyna waxay dhahday haduu guriga geeska dagayo ma wadiidin hadii kala cunto wala kariyaa cunto ku cunaa ka wada cunaa waxaan tahruujinaynaa shaqo u raadiyo oo shaqeysto wiilkii marka waxa lagu guda galay in la guuriyo gabadhii loo soo guuriyay guriga hooyadiis qol gees laga dajiyay markaas loo hagaajiyay cidii marka kale oo gabadha hooyadeed iyo familygooda waxay marayaan marka process bixitaan bariga qoxooti waa laga baxay marka cidii wuxuu dhahay marka hadii maamada hadii baxday waxay dhahday ka dib laaban anaa wax la tari doono insha Allah gabadhii marka waxay noqotay inay guriga gees ka tagto ay cuntada cidii gees ku cunto iyadoo ku qanacsan maamadiina meesha ku kala joogeen marka cidii marka oo family-ga gabadhna hooyadeed waxa uu soo baxay broski bixitaanka way baxeen marka macal gabadhii mayo way ka hartay gabadhii waxay ka eed marka hadii waa taqaan ka kaarray leeyihiin qayb kale iyada ahayd marka qayb waxa baxay marka bahdii fara badan ciido iyadii waxa ka hartay iyo gabar yar oo cidda ka haray cidii waxay tageen America markii America tageen gabadhii hooyadeed waxay u bilaabay markii bishii inay lacag soo dirto ayna ku dhahdo iskaga guur cidda dhex degan tahay guri kreesto wiilkiina aan la iimayl li saarayo ilaa markaas waqtigaas wiilka wax shaqo muu sameeyay marka dukaan yar oo shaqo ka bilaabay hadana uu iska dhaafay bas wiilkii wuxuu qaadanaya marka maamada soo dirto gabadhiina wuxuu diidistay guri gooni ah waxa sidoo marka wiilku wada markan uu guurayay ay maamada soo soo diraysa biilka reerkooda ma wax dhib kala kulmayso oo iskaga guuray maya marka wax dhib kala ma kulmin laakiin waxay markaas maamada leedahay waa isagu ma jeclaystay maamadana markaas awal buu xidhay markii bixisay balan ka qaaday marka guri gooni degan marka wiilka marka gabadhii waxay u dhashay marka hal cunug way isku qanacsanayeen maamadii wili waxay dhahay dukaan baan ku aas-aasaya oo lacag baan ku soo diraya sidaad u shaqaysto yani nin subax meel u kala oo shaqaysto u noqotid yani lacag baan ku soo diray marka wuxuu dhahay dukaan mar rabay gaari inaan ka taaraba ka shaqaysto oo noqon darawal gaarigiis ku socdo way haydaa marka lacag bay u balan qaado oo fiican markaas gaari lagu gali karo gaari yar taxi marka waxa guud gashay wiilkii lacagtii inoo soo diro gaariga taxi buu gato gaarigiisu gurigiisu ku tago cidin uu ku bishto دين تكسير واتقانا يدد بدن ودحيا مجتمع نو شقيا ولا كراديا غير بس برتي مر ويعني مركز تكسير iyo adi تعاملك gabadhi waxay dhahay markay walaalo waa shaqeystaa ma as guursano guur iyo damac baa galay inuu gabadha kale u guursada damac galay bas waa taqaanaa nin damaciisa gabadhii uu ku ogolaaday barnaamij wada degan dhaa marka marka wuxuu dhahay meel aan wada degan wuxuu horaa markaasiga inuu yacni maalmaha habeenkii iyo waqtiyada dhaxa bas inuu soo joogo wixii 3 saac 4 saac ka dambeeyay guriis uu soo hoydo gabadhan oo meel dad u degnaato oo sheekada la fahmin noqoto nolol qaas ah isaga bareefado ah tan gurigiisa u degnaato tan hadii sheekada la fahmo biilkii waxa laga jarnaa usla yahay biilkii gaarigan iyo waxna baas la boodboodaya waxna baas la boodboodaya marka wuu qarsado marka hadii maamada hooyadiis meel yar bay ku leedahay qudaar bay ku gadataa magaalada gabadha marka waxay ka adeegataa qudaarta hooyadiis ka adeegtaa waa gabadhi labaad uu guursaday isma garanayaan meel ay degan tahay gabadhi way walaacday marka waxay ku walaacday cambahan markii la jaro waxay ku walaacday cambahan la jarjaro basbaaska lagu dardaro maamada iska fidistaa marka way iska sheekaysataa sayidada gabadheedii ka degan tahay gurigaana deganahay meeshaasaan nahay yaa ku qabo waa marka waa taqaana maamo iyo gabar wax dhaxmaray way soo wareegatay wax uu sheekaysan marka inuu wiilkeeda qabo marka ma wiilkeedii aan inay garanayso u tiri mise wiilka loo tilmaantay wiilkeeda maamada way keentay magaca waa abtiriskii inuu hooyis degan tahay xagaas
asi marka hooyadiisu inay joogto uu sheekay laakiin qudaar magaalo gado ugu darin marka wixii waa wax iska qarso oo qarqari oo waqti fiican la seedin marka way yaas maamadii waxay dhahdeen kan taksiilaha ma ka wada ay dhahdeen waa asiga ma taqaana dad baa inta keenan ku arkay dhahdo marka maamadii waqti galab alaabtada way xareysatay wiilkii waa waxay dhahdeen guriga uga maaw waxay dhahdeen horta in rag baa geesinimo sameysay aad guursato waa geesinimo ninku jeebkiisa wax ka dareemo guursadaa waqti lacagta la ilaado lehen lacagta hadda haystid inaan lahayn waxaad lahayn meel lagu ma gaaro hadii cidii waxaan ku soo kuuteen oo ku siiyeen hadii sheekadan ay maqlaan waxay kula tahay meel blashes say guriga ku soo noqonaysaa jeeras waxaan ku karnay ma gees ku cunaysaa ma xartaa marka hooyo had maxaa sameeyay waa gabadh horta walaal bay ku tahay gabadhan fogey hariya saddex helay marka saddex mid ka mid daji gabadhaas meeshaas ku degnaato ilaa ay ka soo umuleyso ka soo umulbeex meesha ku degnaato wixii damo soo kordho meesha ka qabanayna marka talada maamadu qaatay marka wuxuu leeyahay marka xagaas ku dejinayaa oo qorraay marka marka maamadu hooyadii ku baray awdhax marka u sheegay marka inay qalad tahay inay soo sheegto hooyadii misaana ku baray ana ku baray hooyadii maamada loo keenay way naxay gabadhi marka way maamada ugu sheekaysay maamada wax dhaad marka maantii sheekada ay sheegtaan dareeman dadin wiilkayga yahay saas darteed wiilkayga ula tali taladana qaato meeshaas iska guuraadigo wiilkayga intaas ka joogo inta ka shaqeysto hadii even taksiilaha uu wareega moota saddex xer uu tagi markuu waxa ka tagaa ku soo booqdo markuu imaadana intuu saas ka joogo sidii qaaday marka ninkii gabadhii marka uma batagabo tii xagga u geey tii uu fogay uma batagabo soo maraa marmar iduu waxa uu dhaay bostaajada Hebland jooga igu ma way u tagtaa uu arkaa gaariisu sii wataa marka customer ku taanu sii wataa marka iyo way ciilood marka طريق قرابة اللي هذا كده وعطي حدا أني كان زمان وسمي هذيك الشركة دي وبنان كان صديق ويقول هذا مركز هو وابسي مركز أساس ونيكي ويرنا عمر حدا ولا لي مرحلة كده حبيل ما كله زاحن حتى ونحاس كل ده تبان وشقيا وحوالي حكي وهذه فرسمان سميني ولي ودن وأسود جلس أني كينو سمي وحدا علي قبل مركز ولا كده وشكت وحدا أساس باجرته أنا واحد الربع في خوان ماشي جوا dadkaas oo naga dhashtay oo la soo raadin marka waa loo imaado Soomaali fadhiyo waxa la gabar hebel laahay ma qabta meesha ma gees hadii ma aradu way adkaara dumayda dinin walaashida ma ku dhaw fiirbi ku dilaa balaa taagan marka waa gabar maxaa ka timaadsada la marka rag badan rag ahay maxaa ka timaadsada gabar inaan qabo niyo saasa ka timaadsana qalan ugu dhacaasana ka dhacday ninkii uu calaamay marka maxaa marka maalmaha meeqa waa la marka dawad bir wax gabdhaha kala qayb baa warba taagan saamku maqal gabadha masjid ugu diro ku furay waya gabadha masjid ka aragtay waa kale u soo falcelisay waxay ninkii saas u dhahay miyaad arbaxdo miyaa waxba ku sameysay may afna rag loogu tagay saa duu sameey bal ku noqon u dhaadane ku noqdo marka niyo wuxuu dhaayay dii aad furis xatii maxaa ay u dhiiweysay walaashaada waa ku furay oo ragnimo u halgaysay marka wiya wuxuu dhaaniyo saas ma ahan aniga saasa jirto gabadha xatii walaashaada waxaan ku biilsana ku biila aniga maalkan dadkaas wax ay tareen iyo calaalkiisu keenay markii uu sheekada markaas jirtay wuxuu dhaayay saas diiday gabadha meherkeedana si biilkeedana waa laga rabaa diyaaraan wahay ilaa gabadh umasheeda iyo bila lagu baahay markaas guriga ku joogayso waan siina wada marka sidoo uu balaqaa marka intaas sheekada dhicisa gabadha uu qabo hal eray may maqleen ninka uu farxay marka wuxuu la sheekada diisaa kugu dantay mid dama isku taaban sidoo faraha uu qaaday marka ilaahay wuxuu mahadiyaa ninkii hadana hami kale u yeeshtay inaan taro kale falaay ku qorno idina bixi rabta waxay dhahday haddaan ku sheegani oo kaarkan kugu darsan waan ku qaadibo biilkan uu soo diray America laga soo diray waxaan lagu guumeysanayo ana live aan ku geeyay America laga soo biilan ku geeyay waxaan tagi UNTNT waxaan dhihi ninkan uu qaba mana kala xari karno kaarka lagu daro kaada laga soo jari waan isku daray hal meel aan ku wadaynaa haddii arinta runta u dhahay ii samee America tagay
marka dadka qaxootiga jooga markaas muhiimadooda koowaad buufis waa inay baxaan meeshuna waa meel kulul Amerikana baraf baa lagu sheegay marka way isleeyahay marka dadka meesha laga soo bilaayay hatag xagga tag ba soo fiiray ninka gabadhi marka way dhiirigelisay sax hayuu dhahay marka UNT tagtay sidii hod u samaysay kaarkii u soo jartay marka asiga xaaskiisana waa kala kaarsan kugu sheegay labo kala family kaliya ina beeday kula jirta asina cidooda kula jiraan hooyadiisa marka aragtay maxaa uu kaarka u jarnaysa dhahday uu noo sheegay marka sheekada ugu jarnay wuxuu dhahay waxyaabo kala sheegay security iyo maamada uu iska leexiyay marka kaarkii uu kooliis soo qaatay gabadhi uu keenay meesha tageen waa lagu buuxiyay marka waxa la diyaar waay UNT marka laba mar imtixaan maraysiin kadib wixii li soo baxo waa nasiibkiina marka waxay dhacday ficilkii waan ku sameeyay adiga guurso dhaad marka saasmi aha hayuu dhahay marka maadaama falayd ka horeeyay iyagu soo qootay isagii hooyadii aslabada iyagu wax may marin dadka marka qofku waa gabadhu wax may marmartay gabadhiidu wax may marin hooyadeeda baxday dadka waa kaar gooniga nasiibkaas u hesho waay iyo marka hooyada wuxuu baxay medical markaas cuniga ka xanuunsanay may waxaan ku leeyahay hooyadii isagu soo munan kula jirin kaar process oo bixitaana mayo dadka kaar leeyahay qofka sabab nasiib uu ku helaa processka UNT u garato oo yani soo dejiso marka asiga wili lama soo dejino dadka baxitaan ku jiran marka gabadhu may dhegneed way dhegneed oo way martay waxay martay marka way jansis ninkan kaarka ku dartay ninkan wuxuu dhahay hadii marba kaar lagu daray oo bixitaan aabo koow waa wax cad marka u jeedo mugtay wuxuu gabadhan guursan marka waxaan xasuustaa gabadhi xaaskiisa inay cunto qado u diyaarisay uu soo wacay wuxuu dhahay ma imaanay maanto wuxuu gabadhi inuu wado oo meel kale geeyo soo meeray marka uu soo celiyo marka gabadhi way kadib waxay dhahay horta guriga marka aad dhisto kadib ma meher ka dhaca hay'ada marka guriga marka hagaajiyay marka oo qol way kadib waxay dhahay laba qol ka dhig ma gabadhi marka way ka amar badataa waa inkan wuxuu leeyahay buufiskaada iskaga ciyaarin marka laba qol ay u hagaajisay deeri u hagaajisay u xirtay asaa waxay u hagaajiyay dhabka uu xiray marka uu hagaajiyay waxay dhaday marka hadda waa ismeersan karnaa labadeena waayahay way isku afgarteen iyo marka waxa jooga walaalkeed iyo hooyadeed aabeen wuxuu jira Soomaali marka museyga waxa asna kuma jiro marka xagga isku day museyga waxay dhaday walaalkeyga ana kula tagay oo isku raacayna walaalkeed uu arkay inuu yani kaarkaan ugu soo diray wiilkii maamada way la socday sheekada museyga wacay irinta uu sheegay walaalkii markaas waxay gabaati u dhiibay sheekada uu soo afjaray markuu meersay gabadhi waxa hartay in loo galbiyo labada caadi aroos caadi tan dhuumasho ma tan waa caadi guriga la geena gabadho tii hore dhuumashadu ku soo tagay warba joogay hay bas inka marka gabadho marka turme ma loo garaacay suuxii ma yorto cidii wuxuu geeyay neef ari waa loo qalay uu soo yeereesto dadkan aroos waa la samaqay qaxooti waa la arkay wixii meesha laga qeeliyo yaa tuula yare marka gabadh way maqashay in aroos oo jiro marka suuxii way soo adeegatay gabadhiyo oo qabay qaday ninkeeda u karsatay waqtiga caadadiisa 6 saac markuu soo ruuxa wuxuu raayay qadiis uu cuno gurigu imaaday wuxuu dhahay waan soo yar daahay waxay qadada waa diyaar ee imaaw markaas soo alaab ka qaatay gurigu oo rabo inuu meel geesto oo yani macruus iyo wuxuu qaatay adii farsamo kale la bahayo markaas bac ku qaatay gaarigiisana uu si dhaqaajistay u tagay gabadhi qadada ma imaan marka way wacday wuxuu dhahay mashquulsanahay meel kale aaday dad customer qaaday sidii qadadii marka waxay dhahday bal casho ugu dhigay meel u diyaaray waqti casho la gaar marka way wacday marka 3 saac markeeda wacday qaxootii fiid waa la saxdaa waa la kala hoydaa way yaabtay ninka saacada maqan maxaa way wacday marka tii joogtaa wuxuu dhahay marka waa imaan rabaa waxay rusug telefoonka uu dansada marka bas marka qaxootii waxa waaye gaarigiisu ku imaado gurigii iyo arooska meesha laayada laga daraa waa aroos normal gabar waxaa jirto cidda kula jirtay kaarka walaasheed laxmi meesha iska tagtay marka arooskii waxay aragtay gabadhan guri la sii gelinayo ninkan asan la socdaan labadu la sii gelinayo oo gaarigiisu ku imaado weli way fiiris way yaabtay bas waxay gabadha way yartahay way soo orday marka walaasheed u imaatay arintii u sheegtay marka dadada abay ninkaado guri sii galaayo u jeeday mas guri saaxiibkiisa aroosanayo way ku wareertay marka gabadha 12 jireed markaas
marka gacanta soo qabsaday marka soo socdeen guriga arooska imaadeen marka guriga marka arooska ba deerta banaankeeda dadaas ka fadhiyay marka gudahaysay u socotay dalaq walaad gabadha marka waxay u gashay ninkii gabadha xalgu af u gelinayo ibaa waxay isku qabtay meesha dhab asi marka gabadhii uu dilay marka taabdilay tii soo duushaday oo guriga imaatay buu dilay guriga ku noqday waa ay darantaa iska socotaaday meesha isku qabsaday ilaahay wuxuu mahadiyaa ninka arooska u qanqaabay gabadh waa qaraabo koow dadka meesha joogan gabadhii qaraabo leeyahay labo asiga lagu soo jeesto marka arooska meesha wixii yar dhulka haliyay dagaal caadi ah dadkii oo hadii cuntada cunayeen bariiskii waa isku daaday baad meesha wala dagaal meesha gabadha soo carartay guriga iska hooyatay meesha marka qalaastii baa ka dhacay guriga xad waa la jiyo marka waxa marka wax dhis waa mugtay dhulka iska dhuftay dhulka la samay wala markii meesha isku baabiyay ma waxay noqotay marka xatay dhaawac soo gaaray qaar dhakhtar lagay marka waxa dhacay wiilkii inuu gurigiisa ku hooyo xatay gurigiisa ku hooyo iska dhoobay leen gurigiisa isla markii ticwadi America maalin u taay hooyada wacday arintii u sheegtay abtii gabadha abtigeeda joogo marka oo sina meesha ka dheer qaxootiga saddex heer kamid ah isla habeenkii 7 saac gaari u soo qaatay horta furaha gaari keenaa Allah asiga si gaar loo wada ma aqaan marka ciil daraas inuu gaari markii kilo geed ku dhuftay abti gaari yaarada ku jibay dhiig bahay ay had jajabay gadaal u celiya marka ugaasoo kula ku dhuftay ay nima madaxooda gaariga ma aduu jaba ustaad kama qarsan ma isku dilaysaa Allah waa ciil darteed u dhahay waa soo boodaa ruushkiisa wuxuu dhahay guri ma wataas ma jiris walaayada dhaba finno meesha nuga asaasay marka meesha lagu qabtay abtigii waxa la hay bal xala jira meeshan waa qaraaban hane waa arintan hoos u dajiyay Allah waa la soo waday guriga gabadha habeenka san saaxday marka waxa la gabadh iska furaa la mar tii lagu biilayay marka hayuu dhaa markuu ogolaaday war uu isaga daray iska daray uu ogolaaday marka maamada sododiisa waa markuu dhahay horta intuu sododiisa wacin baa sheekadii waxa maqshay gabadhii kale oo cunug dhashay oo cunugeeda ilaa 7 bilood u gaaray baa maqashay ninka arrinta adinku qasmeen oo wax kala sameeyay si u soo socotay gabadhii kale gurigeeda imaatay waxay dhahay assalaamu calaykum seetahay fiican walaalay waxay dhahay wiilka aan wato ilmaadu kamid yahay oo maxaa dhacay ninkaada iga dhalo waay saamaan ii qari inna waa saamba gabadhii markaas aamin daro aan caadi meeshka heshay waa shakada way yaabtay وهذا ما المهي واسقى أبوها إن كذا غير المعمود على صعته أنا أنت معمود حتى ويجد بقى مركو حلوة مركا معمود إيده وحي كاميرا قاطع مركا هو يده بيدا جو مشى مزيكا بيدا كمسكين مركا لكن وحا مركا كوي مكبر معمود يوعى غير أنت وشكت هذه بل أرين كلا صوب بحذي هل كاس حال مرة حال أنت صوب مرة سكيوسو جور نيرو ما بيدا مركا المحل مستحن واستحن وصوّده أيوة مركا وحال سقى فكرت مركا إن قبل اللي وضع أقول لك نيروبي أنت نيروبي قبل لك جرت إنك على جفرة وحال سقى فكرت بس قبل مركا حلا مركا حدا وان فرايا لكن تعرف فلان وقت فلاني أنا فرايا لكن أقوم قصبة ولاني كانوا محوجوا عن قاتل واي هلا مركا أبتيجي أسيء عمرك اسمع ما هبين وذي مخرب وقتي واسك موتي وده اسكور هذا مركا بس وقاسو خبتك عندي سخبتي مركا أبتيجي توري ولا صوب عمرك أنا كسارة وده وان كدري إيش هذا وده ده إيش شو هذا اللي بقول كدري نيوم أسكي ديسيد هاي هذا كود فرمك هذا فرمك سدح هذا فرم وهم فرلا سدح تلاقى فرلا مرك جنيك نفتي سبت بسنة فرقوا سيدين مو عرّي فرين نقول ما يقاس بس يقولوا أنت وحده إنكوا صفرة صدق تلاقى سوق هذا هذا وانا دي سنتها وده وانا كنا نقول يعني مركا يقولوا حدا اسمها يقولوا وين مركا تقدر ذيك على مركا بس أبتدي نقول تيجي مركا سياح يريدوا كسي بحي يقولوا وين عليه بس درس كمركا قاب وصو قلنا يقولوا ماشي جيفت الله الماضي وعلى طابت معقول على الله وين يقولوا وين هذا مركا نحتم دراد يقولوا عليه يقولوا ما ماشي يلو بي واحد سي واحد الله ما حكى قدام أنت أشرت مركا نيجي نفرق إلهي وحوم هذه بريس واحد منك أو ما مرة أنت ولا ولا لي أنا وكجعل هاي وقع على ما بقى أنت واسجل عشان تاي
waxay dhahdeen marka mid samee anada Nairobi isku raacno haye intaas waxay isleedahay ninkaada ku wanaagsanaa meeshaan kala fogow ko ma waxa la yiri maxay durdur iyo dabaal galo hebel weligii ma daahira la yiri marka ruux haduu wax barto intuu waxa la gacanta halka laga gooyo intana dhaqaaqada marka ninku waxa uu barto inta badan kama tanaasulo laakiin iyadu waxay isleedahay dad Nairobi ka tanaasulo haye waxa marka waxay dhaday marka hooyadii oo sheegay arinta maamadii u sheegtay maamadii waxa argay inay jecelhaay oo ninkii wiilay ka maarmin wiilkii soo wacday waxay dhaday wiilkii wax kasta anaa ku sameeyay gabadheeda marna ma ay wax xumeeyay haye isku afkartay marka haye abtigi sheekadu maqla marka haye ninkii cid iska maslaxay oo arintii u dagan tahay oo guriga ku hoydo maqlay haye waxaan aqay marka haye ninka wuxuu ahaa inaan caadi ahay oo soo baxay wuxuu dhahay magaalada horta imaaday horta meeshii uu soo tagay imaaday haye fida ninkii aan saan ku soo ogaay aan isla marteen ma dib uu noqotay ha ana asaga kala bixin iska daa haye uu soo tagay marka haye waxa jirta qaxootiga shaleema laga daawado ciyaar haye ninka shaleema ka soo baxay shaleema ka soo baxay diftiinka badan uu ku soo baxay indhaha mudmud ku noqday minaa mudmud noqdeen markaas wuxuu ku leeyahay marka guri saaxiibkiisa bis sheego iska qabsan marka abtigu uu daw socdaa si ku kala ninkan oo shaleema ka soo baxay u jeedeen guriga uu gala marka guriga markuu galay jaakad madow uu qabo marka oo dheer markaas jaakadan dheer madow uu qabo bis meel uu saas kaga suray nin saaxiibkiisa wuxuu inuu soo baxay jaakadii uu soo qaatay marka meel surneed waxaan jaakadii qurux badan asku ka beenaay jaakadii soo qaato koofid soo dabaxay marka abtigu waxa ka dhacsan uu soo bixi intaan uu soo bixi qabo ninkan dhaawac waxa gaarsiiyay bal cabsi gili labada markii taal way isla faacin jaakadina ninkan uu soo qaatay yani dharka way isleeyihiin labadan kii wiilkii hore ee gabadha qabay ee guriga galay iyo kan jaakadkiisa soo xirtay koofidna soo xirtay ninka markuu ku galay koofid ma wadin markii kala arko wuxuu yiri wakaas ninku soo baxay koofid buu soo xirtay wana fahmeen mar geeska aan ka maray dheer marka labada geeska ka soo maray labada marka laba tooriyo wata marka way isleeyihiin ku cabsi gili ka cabsado gabadha baa ka soo bas ninka markii ka abtigu waabiye ninka laakiin intuu tuurada gelin ninka marka gacanta la fakad jaq uu ku siiyay hadda marka xanuustado adna ficil baa celini jiqal uu ku dhufto marka asan into uu yar wareerka marka ruusadina waa yid walaga uu ku dhuftay walaadna ku celi meesha uu ka geli adiga yid labadii way isdoomarsan abtigina marka waxa ka dhacay inta mugdi waay ninkan wax feer loo ku dhufana maane tuuriye ma gelinayo sax ninka uu dhacay marka jaakadu san noqdo san uu diifo ninka waxa ku dhacay abtigi soo jeedo tuurada ma dilada ninka waan dilay ونحن مركب تيجي سبحان الله هاي ما حكى غلطان تنيجو وين عادت محسن هو ماشي ماتي أبتيجي وحسب بس مركي إنكي صوتي لا بضودي وصوته إلى عبس قليل إنك الدلي هذا الشيء لا يصوت دواء لا بدي أسفيد جست مركب أسفيد جست كسر مركب وعاد أنا قحطيجو ده ممكن صابحين ويلعب سوينا شفت أرجع بقى كل اللي فينا مركب إن ده كان سحربنا يعني بس أردت كي عمرو قرت مركب أبتيجي مغال كي سلاري قبل أبتيجت هاي كينو وسك بحي مركب هاي وحاسكو هرمات دون مركب ويلكي وغوري كسب بحي وقبل قبي ومركز في فرق اللي إنه كله يا أبتيجي نحسن وتريد وأرضاي ودسك هرمات مركب لوخي هاي تيجي مركب عركي كان هو فيري تريد إنك هو عركو ونحي مركب لأن إحنا كل واحد أبتيجي وسك أرض وياه مركب marka sheekada qaybteeda meeshaan ku gaanaysa qaybtu waxay noqon doontaa marka waxa la gartay in gabadha abtigeed iyo wiilkii gabadha qaba iska soo horbaxay way isgarteen gabadha abtigeed uu ka cararay kii kalena isna uu sii cararay gees buu iska leexday wiilkii kalena uu dhintay habeenkii markii waa soo baxay dadkii soo baxay marka wuxuu markii la kala tagay wiilka kala soo qaaday xaalad qoonsada marka uu yahay wiilkii marka gabadha abtiga u ahayd uu ogaaday in jaakeedkiisa wiilkan sababsaday in ninka toorida la deedeynayeen uu ahaa gabadha abtigeed abtigu uu carar marka laakiin kama bixin qaxriga qaxooti dhexdooda laakiin waxa ka baxay qaxriga qaxootiga ninkii kale wax dil uu carar Soomaaliya iska aadasiga daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo halkaas ayaan ku soo afmeerinaa sheekadii uu maanta inooga sheekeynayay maxamed cabdiraabi ugaaska waxaan idinka raali gelinayaa xogaa codkaygu waa xiran yahay dhib badanna ma jiro hargab maan u maleeyaa maantana waxaanu idinkaga tegaynaa maxamed cabdiraabi anigoo ah afkaadha maxamed axmed sidaas iyo nabadgelyo